wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay allay leedahay war Cabdullow geedkana waa iiga soo horeysay wajigaaguna ma fiicne maanta say wax ka yihiin anigoo gurigayga xumaay jooga oo hurda xun ka soo kacay islaan xumoon qabay cunug xun oo ii dhashay dhagax xunoo weyn ha qaato cunug xunoo deriska daqar xun ha ku dhifto dhiig xunu ha ka yimaado oda xumo cunuga dhalay ooyin xun ha igu ooyo ciil xun hay qabto cunuga xumay aan la ordoo daqranay isbitaal xun aan geeyo دكتور حنو جوجا داودي حماد هاي سي واي هاي جو حمايو عيل حن هاي قب داب حنو وين ان قادو دقر حن ان كدفدو دكتور كديق حمو هكاي مادو عيل حمو هقبتو اسكر حنو جوجتا سو اردو حبس حن هاي جو ريدين مهيو حمان فديا حان ku qurxana kara war Abdullah intaas xumaan hada soo aragtay si xun inuu dhimatay hay cunin dhimo horteey war shalay nabadoonka la caleema saaray nin xun ma waa nin odayo la yaqaan waxa dhalay afayeenkii caanka ahaa Allah u naxariistay Axmed Diiri dhaxal sugihii arbeedya dheega jari laakiin nabadoonnimada afhaayeenimada la iska dhaxalaw geeka dheego meelan ka dheegina fidhiye iska fadhiya ka kac ku yirihe war cadda gaabow nin leeyahay gudoomiyihii hore gobolka Banaadir hadal aad iyo cajab galiyo ku hadlay wuxuu yiri magaaladan oo xor ah ayaa la doortay madaxda dawladda waxa laga rabaa iyadoo xor ah in xilkoodu dhamaado wuxuu ku sii daray waxaan xasuusinayaa madaxda Soomaaliyeed mar bay kala tagtay Soomaalidu mar dambe haday kala tagto si la isugu keenaa waa adkaanaysaa buu yiri haddaysan waaga isu iimaane qandafta hal la joojiye aashiin war salaad cali jalle waxa uu yiri dawladda anigu wasiirka aan ka ahaa Cabdullah Yuusuf odayaasha beeluhu iyaga dagaalka hooseed ka ahaa haddii ay run sheegayaan oo odayaal beelad jiraan waxa uu yiri horkacin dagaalka al-shabaab lagu la jiro war meelili leey baraawi xali shabaab ha weerari gudoomiyii baraawi hadali ma yaray inoo nahna weerar doono ogaay badihje inoo lahno ku weerar doono ogaay ma iliyabtana lanka meeli la ku weerar yoona inoo la weerar oga barshin wiin horto hoostiya galadi barsan guuni meeli loo kismaay baaliye salaadnimo wal dangal lugoy oo shabaab ka dheelmadi madiidi roogdi ma yareen saraakiil haayeen inoo nahna weerar waan salaadnimo nahna weerar ogaayni takal waa ogaadahe reedlan la weerar waan inoo la weerar doono og barshin wiin ka jiifada waliyaabi meseladaas warayinka bahi hada ko hora lanko tuug idahan galya leeri marka uu soo galay shanqartiisan maqlay iridka marka uu soo taabtayna waa u jeeday marka uu gudaha u soo galayna waa arkay sanduuqa marka uu qaadanayna waa u sii jeedo marka uu sii baxayna waa u soo jeeday waana la hadlinkii tanaan dhikantareed war waa soo weynaan orodnaa warniyo nin hurda ayaa tahay golaha wasiirada Soomaaliya ayaa hadda ka hor sheegay oo yiraahday baabuur qaraxyo ayaa magaalada ku jira war hadda ka hor xataa baabuurka qarax sida targadiisay sheegeen kii wadayba yaqaaneene war saa hadii la furta suuqan ka soo gadahayna war madaxweynaha Soomaaliya wuxuu yiri shacabka cabaadkooda marka aan la yaabno wadooyinka ayaan u furnay laakiin shacabka waxa laga rabaa inay feejignaadaan oo horarka soo weeraraya ay ka hor tagaan marka anigu waxaan la yaabanahay goorma shacabka amniga loo xil saaray war madaxweynaha may baaraga jiray shacabka Falastiin oo taangi dhagax ka geemaayaan warnimada dadka Soomaaliyeed dhiigooda iyo dhacaankooda iyo naftoodu waa raqiis ilaahayna kama dhigin iyada iska dhigaysa waxa la ii sheegay askari isteelii qaranka Soomaaliyeed xirani inuu nin baawur bi'ela wata 5,000 shilin Soomaali isbaaraa u dilay iskama dhibiyo asagu 5,000 xaa ku dhajiya war lanka 5,000 diliyada sheegaas transmitraalagana afka hore shibad waana yaamaha lagu dilo waa kaaraan wariya meega bajaaj oo $1 nyaanya ulin dili waana $100 ku qaado ay bili aryaadaha kuwan la dilaayo waa bar ku
kuwa naftu ka baxdee waxaa ka daran kuwa nolosha lagu wada haayo cunug dhinna oo camaara lagala soo qaxay oo leeslaayo ha laga dhaqaajiyo nimankan ilmaha dhidhinna askarayhaya dhaxay ku afduubteen war waxaan la yaabay ilmaha shabaabku ay dalbadeen oo ay rabaan in sekada lagu siiyo 6 jira u yar 10 jiraan ugu weyn Allah reebal waxaas maqla bal 6 jir ay ku dheefayaan waraaq cado ayagu ay wax ku dhigaan oo hal dhig wax ku maqashay rabaan arhooy masali garuunaan in guduubi masali garuunaan in guduubi todobaatan qofood oo askari oo nabad sugid ah shaqadii la ka rugsay leeri halka rugsay masali garuunaan in guduubay maysiin lahaa kuwalba hubjay wadada kuwalbana hubjay wadada dharjanu wadadaana dehe reed masali garuun la ka duubihe warawalan ku sheegnay mid bashaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniya jarabaad madow iyo indhaha shabaqa saartay haadu abse hood isla weerweerihaysa shaki male inay lama shabaab wada shaqeeyaan ma dhahdido war 7 bilood waxba lama siinay dhahan ciidanku waxaan nalan siiya markii aan dhahnane ruqsaatiin ayaan nalan dhahay ee irida ka baxa marka ma taasaana qabata hay ku qaba weyda ariya ciidanka ama meel kale loo xawili rabaa war madaxweynaha mar hor u gaashaandhiga degay war guddiga difaaca baarlamaanku waxay yiraahdeen ciidanka xoogga dalka kufsi ka sameeyay shabeellada hoose marka dadka yaa ilaalinaya Soomaaliyeed haddii askartiisu kufsanaysa gabdhii yaahu waxaas waa ceebe hanoo sheegin shirnaha ka sheegin haya ku raacay wariyana ma uu yimaadeen afkiingeeda banweela ololadiina walgareebada aaw shariifa huruwe wadanka sakiina war tiktok shaakir iyo janaal galaalo isla taagana arkaaye hay isku sheegay heshiiska waxa afla galay ama uu ka baxdahayahe wada waxaas war maahan markaas shaxguur jirtay la gaar ordaha naga taga ma era korta wir warnin ciraystay oo aqliga ka lumaata or naga sharka uudi billaahi ma naga shaydaan hood naga cawdu bilayse iga tag ishaadu fuud ha u dhamaatee wariga du habad